كيف شلك وحاله بابور خير إلا بركيسو ياي بي 4 5 5 2 أي ودي إن أنت اللي يقول شري إلى هون حريسته عاشق علي حسن عاشق علي حسن هيا بابور خير ودي إلى هون حريسته وعلى وحي باشا كدعي قصاره هدوي هاي لمشاه هدوي هاي داو هدوي هاي ده مسؤولية ده واحد قاعد يسوون ده إيه كي يدور waxaan isku nimidna waa garanayna oo waa shilka weeyaan isku nimidna ibanteynka iyo booyada anagu kulay anu goobta waad saraakiisha meesha joogto dhan way tageen biliiska soo cabira in wax ka qora ayaan meesha joogaba oo markii dambe tagaba dhamaantay waanu tagnay inta AT ku qoran iyo inta shil cabir ku qoran iyo inta muxuu ahaayay waan wada tagnay marka ilaa maantana waan ku jiraa aranka kulli anagu waxaan soo bandhigi doonaa wax xaqiiqa oo runa oo halka aad ka arki doontaan hableen horta Allah u naxariisto goobtana waxa weeye goobtii uu shilku ka dhacay xariiqa inta u dhaxaysa waa laamaydu liid cad ayay dhaxda ku leedahay marka waa naga liidka casaynay maadaama ay warqadu cadahay oo cadaankii ka muuqaneen marka casaan baanu isticmaalno labada haad badha gaari wuxuu ka yimid bari oo waa gaarina wuxuu ka yimid galbeed adeer gaarigaad watiiso bari kamaadna okay gaarigaas halkaa markuu soo marayay gaariga halkaasay iskaga dhaceen sidaasuu kala jeestay gaarigii wuxuu jeestay galbeed booyadiina halkaasay ka carartay halkaasay oroday halkaasay gashay ka intaasay afka la gashay in badan baa kolley dadka noogu timid meesha adeersu soomayaan halkaa gaarigaaga meed ku xusuusantahay kan kale halkaa maad ku xusuusantahay ilaahay hableennii haw naxariiso qof waliba maalin buu dhimanayaa gebigeenu dil baynu ku wada xukumannahay samiriye imaanna ilaahay hay naga siiyo wax wanaagsan ilaahay hay noogu bedelo laba baawur ba isku dhacay rag waa dhaawac ragna wuu dhinteen hablina way dhinteen waayahay gaadiidku xeer buu leeyahay gaadiidka cid baad samaysatay caalamkaad samaysay xeer baa loo sameeyey 114 qodob baa loo sameeyey waxa la yidhi gaadiidka lagu xakameeyo taraafikadii baa loo sameeyey waayahay 114 qodob anna qodobka 106 baa noo ogol inaanu kala sheegno shilka oo hordhaca waa hordhac qofku kolka ama ku qanci waayo de garsoor ku balageeya waayahay markaan u soo noqdo shilka labada baabuur iska hor yimaadeen baabuur waxa weeye baabuurka B4252 baabuurna waxa waa baabuurka yar baabuurka weynna xagga barigu ka yimid halka calaamadaas ku taala ayaa la iskaga dhacay waayahay marka wadada mitir baa la saaraa haddaan mitir la saarin cadaalad lama helayo mitirkaas cadaalada wadadaasi waxa weeyaan balladkeedu waxa weeye 9 mitir iyo 20 senti weey nin waliba muxuu leeyahay 4 mitir iyo 60 buu leeyahay gaariga weyne wuxuu ku jiraa 2 mitir iyo 7 gaariga kale muxuu ku jiraa intii kordhan waayahay markay saas ugu dhaceen gaarigaas uu jeestay halkii shilku ka dhacay wuxuu ka dhaqaaqay oo hore uu uga duulay 18 mitir gaariga weynina wuxuu cararayay ilaa 6 iyo 4 mitir buu cararayay dheer buu dhex galay kafka shilka waxa leh baabuurka yar ee lambarkiisu yahay B4552 ee ay waday inanta la oran jiray ilaahay u naxariistee caashaq علي حسن ayaa baabuurka yar waday ilaahay u naxariisto waxa la wixii meesha ka dhacay
khasaare hadduu yahay dhimasho hadduu yahay dhaawac hadduu yahay dee mas-uuliyaddeeda waxa qaadaysa un dee ehelkii iyadu waa dhimata gaadhigaa yar wuxuu ku xadgudbay qodobada 77 oo wuxuu galay bidixdii haadkii bidixduu cararay wuxuu ku xadgudbay qodobka 74 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka uu dheereynayay khasaaraha iyo dhimashada waxa keena xawliga waayahay wuxuu ku xadgudbay qodobka 74 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka wuxuu ku xadgudbay qodobka 446 oo dhimasha ka timi wuxuu ku xadgudbay 491 oo xeerka ciqaabta ah khasaara ka yimi iyo dhimasho waxa la wixii meesha ka dhacay gaariga yar ee lambarkiisu yahay B4552 ba ka masuul gabadha inta taasho waday lambarka koobaad horta koow waxaan noo sheegay ninkii gaariga u dhintay walaalkii baa ahaa caaqilka walaalkii inanka ayaa u dhintay caashu soo dhintay caashu waxaan haddana baadhnay inay cidi ka bedeshay waxaanu weydiiyey ninkii oo sii mareysay wadada oo askari bilaysa ayaanu aragnay wuxuu noo sheegay inay caasho waday halkaan iyadana waan kaga qanacay qodobka saddexaad ee maanta ku caajisnaa meesha ku fadhiyo waxa ahayd inaan haddana sii xaqiiqsano inay caasho waday sawirkii moobilkana la igu soo diray ninka Cumar Abaarsa ayaa soo dutaagay oo baara iyo dadkii baa soo istaagay gabadhii dhinaca waqooyi baa u dhacdo looga saar labada gabdhood ee kalena waa laga saar sawir baa laga qaaday sawirkii laga qaaday waanu haynaa sida ayaanu ku xaqiiqsanay inay gabadhaasi gaariga waday saddexda qodob iyadana taasaan niga soo wabeynayna calan qadarkana ilaahay baa keena kulay qofkun baa wadi lahaa saddexda laakiin saddexdii mar hadday marxuun noqdeen maxay ahaydee dee waa inaan iska sugnaa si aan qofka ay ka timid shilka ee gaariga waday intaasay sidoo noqotay sidaasaan inaguna inagu qancinaynaa qolada marxuunka ee inanka ay weelahaayeen waad noo cadaysana si fiican baad noogu sheegtay inay aad ka qaaday gabadha turaa ay ka qaaday intaa waxaan daba soconay gabadh kale oo waxaanu helay gabdhaha ay wada socdeen gabadha Muuna la socotay oo dhul bay iibinaysay gabadhii kale la socotay baanu baad halkay kaga degtay baanu iyad raacaysaa baanu nabatir gabadha waxa gaarigaas raacaya oo lambar sana caasha dhul ay leedahay baan soo tusayaa baarista dheer baanu samaynay sidaas ay caasha Allah u naxariistay marxuunkaas hay gaariga u waday oo ku cadaynayna walaalayaal arinta sidaas ay tahay qadarkana ilaahay baa leh qoladaasi gaariguna xawaar u lahaa runtii inkastoo uu ku jiray wadadiisii uu yaalay calaali sayyidina maxamed sida aad uga soo shaqayseen iyo sida aad u soo dadaasheen ilaahay baa idinka jisaay marin doona looma qabo askartu inay wax noo qabanayso kolkay wax dhacaan iyo goorta baa la ogaadaa laakiin wax xil weyn baad haysaan waad soo shaqayseen waad soo dadaasheen sida aad u soo sharaxdeen waa si qiimo leh oo bini'aadamku ku qanci karo waanu ku qanacsannahay annagu haddii aanu nahay qoladii dirawalka haddaanu nahay booyadda dirawalkeega waa ku qanacsannahay qaraabadii ehelkan simiga Allah inaga siiyo daashil baa dhacay qadaraha baa dhacay ciidanka nabadgelyada wadooyinka ugu horeeyo taliyuhu waa mahadsantiin aad iyo aad baan ku mahadcelinaa Allah idin fudaydiyo culayska idin saaran iyo ammaanada idin dhiibayba waanu idinku ducaynaa Ilaahay ku fudaydiyo dhinaca kale kullay waxba dee lama kala laakiin khasaaraha hadda wax mas'uuliyadda qaaday jiifka iyo aqalka ka fadhiya iyagana waa ugu ducaynaynaa annaguna waan ku qanacsanahay haddii aan jaalibiyada dadku ay ka baxeen aad iyo aad ugu mahad anigu isku mid baan waxay laakiin wixii dib khasaare ka yimaada anaga qabno halkaas iyada gaarigaas maadaama Caasha Cali Xasan waday oo cadaysan biliska soo cadeeyay oo qaadana waxa la xala tiim gaariga waday ee yabaale waxay noo sheegeen halka ku baashi hoosteeda iyo ka soo qaad $400 iyo warqadii ay dahabshiil kaga soo qaaday markaa iyo $10 ay taan malaynaya $410 iyo koobiya 40,000 oo Soomaaliland iyo baasaboorkii oo Ingiriisi
intaana nagala wareega waxaana nagala wareegay iyo dahab ay leedahay dahabkaana waxa le annaga sida la noo sheegay gabadha dhakhtarka hortayaa loo qaaday gabdhaha marka gabadha muuna layda ayaba yiraahdeen ka soo qaadnay qoladii kalkaalisayaasha ay muxuu ahaa afmar saddex hablo way kala qaadeen dahab nawa bulkad dalkan qayraha la buuxayo midna waa dahab caadi dahab ka caadi waxa ka soo saarnaa goobteeda ka qaadnay inta muuna layda ila in kala sheegnaa xaq baan u leenahay gabdhaha maxay ahayd dhakhtarka jooga markay daweynayeen anigu waxaan ku cararay dhakhtarkan taagnaa waxaan inagu gacanta la galanay wixii aad ka soo saartaan sideeda kale noogu kala sheegaan alaabtaada soo dhiga dabadeetana waxaan ku wixii dambe aad aragtaan sida u kala qaadaba ilmaada reerabtaan aragnana waa taa inagu sidii u kala qoran tahay ninkii wax ka soo qaaday waka mobilada saddex mobil baa iyaguna ku jira laba waaweyn iyo mid yar waa la kala garan karaa iyagana oo magacii baa ku qoran iyo lambarada baa la garan karay taasina waa sida waxaan ku leeyahay chiefka iyo xasan gabadha kamida laba inta ku leeyahay chiefka ku leeyahay